maamulka dowladda hoose Berbera ayaa sheegay in ay gudaha magaalada ay ka dhiseen taalo lagu xusayo lagu xasuusanayo boqorkii Jaceylka iyo cilmi Ismaaciil Liibaan ibn Boodhari Jimcaale Cabdilaahi Jaamaca oo ah agaasimaha waaxda qorshaha dowladda hoose Berbera ayaa sheegay in taalada ay dhiseen ay tahay mid loo eekaysiiyay foornadii rootiga ama moofo taas oo ahayd halkii uu shaqada ka bilaabay cilmi Ismaaciil Liibaan ibn Boodhari sanadihii 1930kii markii uu horeeyay fikirka taalada waxay ku timi maadaama magaalada Berbera ahayd meeshii astaanta u ahayd in magaalada laga helo marka qof dalxiis ah yimaado meel lagu xasuusan karo waxaan isla garanay in aanu sameeyno taalo u gaar ah oo magaciisu ku xadhan yahay gabiyadiisa iyo astaamihii oo dhan ay ku xadhan yihiin ayuu yiri agaasimo Jimcaale sida ka muuqata sawirada waxa wali ka socda dhismaha taalada waxaana hadda la dhisay foornadii iyadoo ay taaladu haysato badbul ah oo gaaraya ilaa 20 mitir halkaas oo laga sameyn doono beer ay lamaanayaasha ku hasaawi karaan bishii Maarso ee sanadkan soo galay wiil dhalinyaro ah xafladii aqalgalkiisa uu ku dhigtay xeebta Taallo oo ka mid ah meelaha astaanta u ah Boodhari Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya waa wiilka ku aqalgalay beerta Taallo mar aan weydiinay taaladan laga dhisay halkii uu ku aqalgalay ayaa yiri maadaama Berbera ay taariikh gaar ah u leedahay Boodhari oo marka la soo hadal qaado ay maskaxdaada ku soo dhacayso boqorkii Jaceylka cilmi Ismaaciil Liibaan ibn Boodhari maatii abwaan ku lahaa Berbera Jaceylka Boodhari ku asna sayidkii qirshiga nuurayo cali basoo badhiye cidla lagama beermen dadku coodi waaxidade waxa ayn bacayn aad baan muhiim u tahay in taalo iyo meel lagu xasuusto loo sameeyo waxa la arki jiray in taalooyinka loo sameeyo dadka halgamayaasha hase yeeshee sida uu sheegay Caydaruus Beershiya in qof wax jeclaaday taalo loo sameeyo inay tahay arrin dhiirigelinaysa jilalka cusub waxay diraysaa fariin ah in ay lamaanaha is heli karaan isna waayi karaan jacaylkuna yahay wax jira